السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يا سعادة قالقة وصل دوادا ماشي حسن مصر اوفيشال فلان هدي عاد نقول سنتي سبسكرايب صار فيديو لايك صار انت سوا فيديوكم هالسنتي اصحابتا ما انت وحاوي وحنكاش وحميشن برنامج كاين ما تحاوي فيديو لبدن بري اما صدحدن بري سوشيال ميديا كدح فافي وانا اركي ويل جعل درتيسا Isaga Soo Tuuray Buundada Isaga Soo Tuuray ويل با جعل درتيس جعل وقبو قبر درتيس أيو ميل Isaga Soo Tuuray فيديو قاس يا مانتا إنا ميشا كدا أوتي دكنا أو هذه لا ركتين أربعة فيديو وحوكو خريجي ويل جعل درتيس Isaga Soo Tuuray Buundada دقمدا وابري كفتا ما هاد قف أو جعل درتي ميل Isaga Soo Tuuray بلا أنا راك نورت مقالك جعيل isku dilo si jiliina waa wax kaliya oo lagu daawan jiray aflaanta kala duwan balse Cabdi Maxamed Nuur ayaa jacayl dartiis waxa uu isaga soo tuuray buundada Ansaloti ee degmada Waabari si uu u muujiyo in jacaylka haya uu yahay mid daran waxaana haatan dhaawaca Cabdi lagu dabiibayaa isbitaalka Daarushifa anigoo dhahaya haystuurin ayuu buundada iska tuuray waxaa sida Universal TV u sheegtay Faaduma Nuur Cumar oo ah hooyada dhashay wiilka وهياب والله وهياب أنا ده كان عمل ده أو قف ميل جعل درتيس ميل Isaga Soo Tuuray أما قف جعل درتيس سودلا هذا مخلوق أما هذا نركو عليها والله لكن ده كوسكمد معها ده كوا إلهي مسلم معايا لي شنطة فرود بإلهي مسلم ده كانوا أساس وعجرة ده أو إسكا قلب جلع سنة جعل درتيس وحول إسكا سمينا وعجرة dad oo sidoo kale ana way jiraan amalena oo indaadeg jacayl waxba loo qaban karo jacayl ma ha faajiraad marka ilka dartiis naftiisa halista u galiyay sida waxa uu dhacay saaka wiilkay anagoo jiif liisoo ka cibiil walaalkiisa isoo wacay hooyo miyaha wiilka yarka Cabdullaahi waxa kor buundada korkiis asku soo tuurooyaa hadda saaray wiilkii oo kor saarna arkay hadda imaaday wiilkii oo food saarna arkay wiil meesh mar ayaan dhahay abo wiilkaas ii qabashada isqawlaayeen wiilkii waa soo xoori gabarta oo jecelaa waa run gabartaas waa jirtaa waa gabar asaay saarnaay guriga macnaa sil joogay gabdho sida noo dhamaadino sida noo dhamaya qof baa jecel dartiis waxaan isla maxaa u gelisan استنى ولا من ودك ما خف هدو تلفون كوسو قلب جلا ايركو هدو كل هذا اسكفان هذينا موقي انت هذاك كنا وقت خوف كنا سان ولا من gabarta oo jecelaa waa run gabartaas waa jirtaa waa gabar asaay saarnaay guriga macnaa sil joogeen aabihiis naag oo guursido mardhow aroosi meeshii isku barteen gabadhiya macnaa akhbadis waxay tibniyo miyaha nin idoro Cabdihay jeclaatay Cabdihin cayaal waa u kiyamalaha san jecelka qabtay ila afgood oo lis raacido asaay saaran waa ka yimideen hadin gabadhi daraadho asaay ka dhacay ninka laab soo raasay ninkii ay raacday xaaladii hata waa raadi buug shaamo oo aadi gabadhi oo gabadhi arko suuq waa qab meel oo dhigaalin saaka sida imaamadu sheegayso wiilkani gabadhu jeclaa ayaa ninka la ka raacday talo maxay uga raacday arko suuq waa qab meel oo dhigaalin saaka marka xal aabihiisa dhaay wala niyo miyaha hooy macaan shaqeyso cunugara taabel meel magaar naaka dirt ana ku daraayo shaqeyso hooyadan ku shaqey adin shaqeyso shaqadaada arko naaka dirt ana ku darsaay saas miyaa miska mooy si war jir mashakili adin maskaxdiis si kala naqata amaleena saaka la saadi aabo waa shaqo aadi shaqraas nis aado ninkan waa soo albaabka ka xir aabi markii isha isku arko isgaadi ha rago hada waa maqlaysiin shaqeysta adinoo noo shaqeysta waa maqlaysiin wiilka shaqo la'aan iyo lacag la'aan ay maamada sheegaysaa marka hadaa rabtid inaad qofta jeceshay inaad heshid ama inaad guursatid shaqeysta waa maqlaysiin horta runta laga hadlo most of the girls of nowadays most of the ladies of nowadays waa baby casual kulli ma dhahayni koo qaarkood waa jiraan oo ku jeclaanaya sida tahay si kasta oo ku jeclaanaya waa jiraan كود دعوة جنا لكن
most of them marka hala shaqaysto laakiin waxaan loo keenay isaga oo meel ka soo dhacay lug way ka jaban tahay garkana dhaawac ka soo gaaray ilkaana way ka jaban yihiin marka isagoo dhiig baxayna loo keenay gargaar degdeg ah oo fidinay raajooyinka asaarnayna waxay muujiyeen in uu ka jaban yahay laftan oo laay fiimarka qaybteeda sare oo ka jaban yahay sidanu doctor sheegay wallahi weel dhaawacuna gaarin sacun wajajabo hadda wax kale oo dhayn ma anag ma garanayne Allah caafiyo miskiinka wallahi sacun wajajabo ka xumay wax laga naxo wallahi gurigan waa guriga ay degan tahay Faadimo Bashiir Maxamuud oo ah gabadha darteed uu isaga soo tuuray buundada waa ujeedaan guriga dushiisa ay buundada ku taala waa meel aan ka fogeyn meesha iska soo tuuray Cabdi Maxamed Nuur balse si xog badan uga helno Faadimo ayaan wax ka weydiin doonaa bal taariikhda jacayl ka dhaxaysa Cabdi Maxamed Nuur iyo Faadimo Bashiir Maxamuud kullu jacayl miskiinkan noocan u galay oo meel inuu iska soo tuuro ilmaha noo wareyso gabadh qofta noo wareyso balan dhageysana kan walaalkay camal leeyahay wiilkaas kalmko imaahay waxa dhaajir wiilkana ku gubay marka oo hadda story kana aroosa aan ku rabiya dhaajiri an kaftan camal leeyahay jacayl as u qawmiyeen ninkan kala isku gubay teeda kala asrunta marka ay sheegan waa kaamin ninkan afaariis waa ka bax xaday alle habartaak soo dhameeysa aan diyaar ku lahay meeshan had gabadha ay dhayso kaftan ay iga heed hadaan wax ka dhaho horta run ahaantii jaceelku kaftan ma gal ma garanaysin kaftan ma gal wax la kaftan ma jirto hay adana waxa hada sidaan hada u dhahay raggu isku mid maaha dadka isku mid maaha qof oo waxaan kaftan u dhahda run u qaadanaa jirto oo jaceyl dhab u haayo oo wax kasta aad dhahdo run u qaadanaa marka wax kasta aad you have to take care waa samal kaftan ay iga heediyo qofkaas waxa laga yaabaa inuu wax kasta run u qaato marka iska jira waa samal in iska jira iska ilaaliyo waa samal waxa dhahday gabar asaaku oo fuulo oo habarteedna yaa osaanka goos qabto damba kal gurigeem ii keenaysi intii oo arintiisa suublad gabarta aroos leed ana buundada iska soo gamaa saasa dhahday aan damba kale marka taa waxa dhahay wiilka guriyaana doosa ida guriyaana bu faraaqaya saasa dhahay asaamko iday habeenkii waa jeeftay subaxdii guriga dhanaa ka tay inuu istuuraay ku sheego jaceelka dartiis isku dilay ma miisheeyani waa soo bacay anna waxana waxa dhahay hurda haasa mashquulka badan iidaa subaxdii canjeera duura waaye 8 saac habeenimo soo bacay meeshan waa weelka gabadha 3 saac telefoonku uu wacay yaa male an lama yaabay maayelay qof وقت والبوك سوق من كرا قفة دوسد أبو كوج عليه you can call you anytime ها وقت الدونو سوق منا مركو كويسو تلفون وكو سوق منا مرك بليز أنا مركز كده هنا وقت ويلت معايا لي إن هرتو حال ذاتك سكميد معها there are some who free their time to talk to you and there are some who only talk to you when they are free time الله ساس بعد يعني كويدا dad qaar jiraan oo telefoon markay option leesihiin oo ay wax kale oo qabanaan haynin telefoonka soo wacaan oo waqti lumis la ku soo wacaan jiraan dad qaarna waxa ay telefoon mashquul badan ahay shaqo amal mashquul ahay laakiin wuxuu isku daa mar walba inuu chance radio inuu he free his time aan ka wada marka inuu anytime inuu soo qabto inuu kula socdo xaalka ku sugan tahay ma garanaysin ha ani saas la oran kara tan kala meeshii shaqadana ragga isku mid ma shaqa la'aan iska jiri kar marka haday wiilasha haday lacag la'aan yihiin odayaasha abood ama maamooda haday lacag leeyihiin guriga oo qof bedelku buundada isku soo tuuri lahaa ama dabaq ama meel kale isku soo tuuri lahaa dadka ragga u guuriyaan lacag wax bay ma tareysay odaasha Allah dila ha guuriyad
ما تسندين فيديو عقون ولا ما وينو فيديو قد بعده ما تسندين thanks all